Miyaan dhegaystaa dadka hadalladooda? Miyay tahay inaan wax muhiimada dhaleecaynta aan wax dhisayn ee dadka igu yiraahdaan? Miyaan aaminaa dadka niyad jabiya ee iliida? Haddii aad noloshaada mar un isweydiisay su'aalaha, sii daawo muuqaalka si aad u ogaato inay tahay inaad dhegaysato dadka iyo in kale. Dabcan kama hadlayo dadka talooyinka ku siiya ama isku daya inay ku caawiyaan. Waxaan ka hadlayaa dadka ku liida, ku niyad jabiya oo hadallada negatifka dhagahaada ka buuxiya. Kuwani waa sababaha ay u tahay inaad dadka qaar weligood hadalkooda aadan dhegaysan. Qodobadani hoose ee soo socda waxay kaa caawin doonaan inaad fahanto sababaha aynu saxda u ahayn inaad dadka qaar hadalladooda dhegaysato. Dadka qaar wax kuu sheega ayay dhibaato nafsiyan ah oo gudaha haysataa. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu qofku dhaleeceeyo si uu isagu dareen fiican u dareemo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu qofku ku liido si uu isagu sare ugu qaado qiimaha naftiisa. Mararka qaarna waxaa dhici kara inuu qofku ku weeraraba si uu dadka kale uga muuqdo qaab bilaayo ah. Waxaa jira dad badan oo ay haysata dhibaato nafsiyan ah. Taasina waa sababta ay qalad weyni u tahay inaad dadka oo kale hadalladooda dhegaysato oo aad aaminto. Dadka qaarkood ayaa bilaa kalsoonida ahi waxay badanaa dhaleeceeyaan ama niyad jabiyaan dadka kale ee u dhow ama ay saaxiibada yihiin. Sababtuna maaha inay saaxiibadood xun yihiin, ee sababtu waa inay dadka bilaa kalsoonida habka xun u fikiraan. Balka waran haddii aad dhegaysato, aad aaminto dadka hadalkooda adigoon fahansaneyn inay ayagu dhibaataysan yihiin ee aynu adigu ku haysan dhibaatada.